coronavirus miyaa ka dilaacay halka aad ku sugan tahay walwal iyo walbahaar miyuu kugu hayaa khibrad la'aanta iyo sida degdega ah uu ku faafayo waxa ugu sii daran soo maaha inaan daawadiisa la heli karin in caalamku isla dhex marayo waxaan ku sugnahay waddan ka mid ah wadamada Yurub ahna wadamada uu sida saa'idka ah hadda u garaacayo xalay ugu dambeysana xaalad degdeg lagu soo rogay kadib markii aan maqalnay in wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay ku dhawaaqday in kiiskii ugu horeeyay waddanka soo galay waxaan go'aan ku gaarnay inaan bulshadeena u khidmayno la tashiyo iyo garab wixii aan siin karnana siina maadaama aan isku marxalad ku jirno marka koobaadna waxaan u sheegaynaa bulshadeena muslimiinta ah ilaahay mooyee cid kaleeto oo xanuunkan joojin karta laga hoos galo ama ka bixin karta kana badbaadin karta inaysan jirin marka labaadna faahfaahinaha siyaabaha uu ku faafayo siyaabaha la isaga yarayn karo siyaabaha looga faagan karo iyo dadka loo baahan yahay sida khaaska ah in looga ilaaliyo ayaan u sharaxi doonaa marka saddexaadna dalalkan tunka buuran oo hadeertaan xanuunka la galgalanaya faraha ba'anna uu ku hayo balaayiinta dollar ku bixiyay ficilada iyo waxyaabaha ay sameeyaan ayaynu insha Allah ta'ala u soo af Soomaaliyeyn doonaa dadkeena assalaamu calaykum magacaygu waa Ibraahim Cabdullaahi ku soo dhawaada barnaamijka fiidiyowgan kooban oo ku saabsan sida uu u faafayo nala daawada hana walwalina waxa laga yaabaa daawada saxda insha Allah ta'ala inaan inagu haysanay markaad aragtid calaamadaas huruuda qofkay ku wareegsan tahay waa cudurkiibuu qabaa wuuna faafinayaa sida gabadha halkan fadhido kale taas macnaheedu ma ahan qofka sidaan u ekaanaya caadiyan laakiin qalab baa lagu fiirinayaa marakan oo soo muujinaya caadiyan qofku waa qofka adiga kula midka haddaad qabin xataa dhakhtarku ma qabo weli si fiican buuna isu soo nadiifiyey hadda labadooduba waa bukaan waana arki kartaan hadda dhakhtarku bahalkii qashinka la isaga ridi jiray buu sii tallaalay odagaas weyn oo bukaanka buu dhakhtarkii la kulmay wuuna ku sii daartay xanuunkii nasiib darro waxaan idiin sheegayaa dadka waayeelkaas ay uga soo kabsadaan way adag tahay intaas kuma ekaana bahalkii faradhaqa ahaa ama infectionska la isaga dili jiray buu haddana ku sii faafiyey odaygii waayeelka ahaa wuxuu noqday xarunta labaad oo laga faafiyo cudurka wuxuuna ku daartay soo booqdihii uu yimid soo booqdahaasoo gaarsiin doona meel kasta oo uu tago taabto iyo dadku kulamada la yeeshaba waxaad arkaysaan albaabkaas ay ka sii baxday sidoo kale halkan waxaad arkaysaan ninkii isbitaalka ka shaqaynayay shay kasta oo uu taabto wuxuu noqonayaa faafiyaha uu kaga taga meesha qof kasta oo yimaada ama uga dambeeyana xayndaabka coronaviruska saasuu ugu jiraa weli 1 iyo 2 ma joogto laakiin balaan isaga kiindhex baxana in yara maadaama aan sharaxaad guud idinka siinay
muuqaalkan kugumaanan soo gudbin inaad murugo iyo niyad jab ka qaadid, laakiin waxaan kuugu soo gudbinnay inaad isdejisid, walbahaar iyo walwal aada ka qaadin, aadna qaadatid tallaabooyinkii aad is-odhan kartid waa isaga difaaci kartaa oo aan kuu soo gudbin doono taaka bitaako insha allahu tacaalaa. caabuqan si fudud buu u faafayaa fadlan gacmahaaga dhaqo adigoo isticmaalaya saabuun iyo shaambo wixii aad heli kartid. jebi silsiladda xanuunka xidhiirsan, rabbina tawakkal. fadlan haddaad tahay dadka baraha bulshada wax ku soo gudbiya, ummadda hawaalin, hana walwelin, walbahaarna ha ku ridin, ogowna kelmad kastoo aad ku hadlaysid ilaahay waa u kaa xisaabinayaa. wixii qadarnaa qofna ma joojin karo, laakiin adigu qaraamaad yar iyo shilimaad iyo sumcad darro ha ka raadsanin wax aad si kaleeta u maarayn kartid. bulshadaada inta aad caawin kartid caawi, wixii aad u soo gudbin kartid u soo gudbi, laakiin hawaalin, fadlan hawaalin dadkaaga. adigaba ilaahay wuu kugu ridi karaayo qof bini'aadanaa tahay. u soo gudbi haddaad cilmi leedahay oo aad luuqado kale ku hadashid oo aysa iyagu fahmin, way kaaga baahan yihiin cilmiga u soo gudbi oo ku caawi dadkaaga, laakiin dhaga hadalka iyo ka jooji. weliba waxaan la hadlayaa yuutubleyda soomaalida oo aynu awal ku naqaanay qofkii dhib ku yimaado inay iyaguna ku sii dhegaan meeshay u ducayn lahaayeen. haddana wixii ka badbadin iyo ka dhigay waxaa weeye waxaynu caalamkaas kaleeta la qabno wax aanan la arag oo la maqal. dad islaamaynu nahay insha allah, waxaan idiin soo gudbin doonaa intii awooddeenna iyo karaankeenna. diiniga iyo ducooyinka iyo adkaarta culimmadu ku taliyeen iyo sidoo kaleeto dhakhaatiirta iyo dadka kaleeto talooyinka ay bixiyaan insha allahu tacaalaa. aan allah barino welwel ma lahane. waxaadna nagala socon kartaan isfahan brosom. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.